golaha guurtida Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay xeerarka isasaarka doorashooyinka qaranka ee xeer number 19 iyo xeer number 14 sidoo kale mudanayaasha golaha guurtida ayaa isla saaka waxay ansixiyeen xeerka guud ee ciidanka qaranka Somaliland fadhigii saaka ee golaha guurtida Somaliland oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida mudane Salmaan Maxamuud Aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka golahaasi mudane Saciid Jaamac Ali ayaa waxa ka soo xaad 86 xildhibaan isla markaasina ay ku ansixiyeen xeerarka isasaarka doorashooyinka qaranka gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ayaa mudanayaasha ku wargeliyay in heshiiskii guud ee xeerarka laga gaaray ay xeerarkaasi ugu codeeyaan waxaana codeyntaasi u dhacday sida tan waxay doorashooyinka xeerka doorashooyinka oo ku fadhiya soo jeedintii guddigii labada gole ee gudoomiyaha ku jireen kuwa falaysan heshiiskii guud ee qaranku gaadhay may fahmi inta oo gool soo jeedintaasay gacanta taaga waayahay inta gacmaadiga inta diintan waayahay inta ka aamusay waayahay waxaynu ku fadhinaa 8 iyo 6 waa ogolaatay midna waa diiwaanna ma ogeysaa si ansax ku yihi wabilaahi tawfiiq waayahay kaasi kaawey sidoo kale xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka xeer number 14 waxa kale haysan xeerkii ururada iyo axsaabta xeer number 14 isagana soo jeedinta iyo heshiiska ayuu ka mid ahaa inta ogolay gacanta taaga توجيه انت تريدون انت كامل والله سيدي لحظة بينكم فردني لحظة واقعات النوادي بأنه معي كافي أسعقي sidoo kale xeerka ciidanka qaranka codeynta xeerarkaasi kala duwan oo marar gaar loo kala codeeyay ayaa waxay u dhacday sida tan waxaan raacinayna maanta waxba uu kala hadi maayo xeerkii ciidamada ee soo horjeeday xeer iska saaran buu ahaa kaana codkoodu gelin inta sidaa ku galay gacanta taaga توجيه انت تقدر والله انت عند الصوت وحاول قلالي شمل اللحظة ولا رواتي انا ما عظيمي فاتحة شعبية لا توفيق على نفسي لا يقدر وحوالي حرر كاسيرة ولا غيره كبر سني انت سيرة وضع ما سمعت هذا يوم ما سمعتين شركة واحدة وينوش بيت هاي تضبية طبعا waxaan ku wareejinayaa xogayaha guud ee golaha wakiilada labadii xeer ee muddo in badan la sugayay xeerkii guud ee doorashooyinka xeer number 19 iyo xeerkii nidaamka ururada iyo asxaabta xeer number 14 waxaan leeyahay xog haye ku soo dhawow waxa ku dhiibay labadii xeer oo bad qaba الله يبارك كسودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صحافة وان سلامنا
saxaafadda qaranka madaxa bannaan iyo tagolahaba aad baan u salaamaynaa waxaan saakoo bishu tahay 17 kala wareegay xogayaha guurtida labadii xeer 91 iyo xeer 14 oo ay saaka soo ansixiyeen kuna soo ansixiyeen 66 cod sida ku taala meesha wuxuu noo soo gudbiyey mid walba 82 copy xogayuhu waa ku mahadsan yahay waxaan hor dhigi doonaa shirgudoonka shaqadayadii ayaanu ka gudan doonaa insha Allah shaqadii golaha wakiiladu ayuu ka gudban doonaa xeerkan dhowr jeer ayuu nagu soo noqnoqday waa markii saddexaad weeye imika wadadiisii tooska ahayd ayuu qaadayaa wuxuu u gudbayaa madaxweynaha iyadoo labada goleba si ay heshiis ku yihiin hadalla ka iman doonin insha Allah aad baan idin salaamayna. Assalaamu calaykum.